Khabiirka dhanka suuqa kala iibsiga ee kooxda Barcelona Gerard Moreno ayaa sheegay in Lionel Messi uu diyaar u yahay inuu aqbalo mushaar dhimis si uu ugu dhaqaaqo kooxda PSG oo dib ugu laabta kooxdiisii hore ee Barcelona. Waxa uu intaa ku sii daray in xiddiga reer Argentina oo garoonka ku arkay taageerayaal ku heesaya magaciisa isla markaana diyaar u ah inuu dib ugu soo laabto kooxdiisii hore ee Barcelona. Gerard Moreno oo ka mid ah shakhsiyaadka hormuudka u ah dhaqdhaqaaqa suuqa kala iibsiga ee kooxda Barcelona ka hor xilli ciyaareedka 2022-2023 isla markaana qarxiyay sheekooyin dhowr ah oo ku saabsan saxiixyada cusub ee kooxda sida Julius Kounde oo daaha ka qaaday ka hor inta uusan imaanin garoonka Camp Nou. Waxa uu sheegay in Lionel Messi uu diyaar u yahay inuu helo mushaar la jaanqaadi kara xaaladda dhaqaale ee ku jirta kooxda Barcelona. Madaxda kooxda ayaa markii hore diyaar u ahayn soo laabashada xiddiga reer Argentina ee Lionel Messi, balse haatan diyaar u yihiin inay dib ugu soo celiyaan garoonka Camp Nou. Lionel Andres Messi waxa uu noqonayaa xor marka la gaaro bisha Juun 30-keeda. Sport ayaa waxa ay soo warisay toddobaadkii hore in kooxda La Liga 1 ee dalka Faransiiska ee PSG ay dooneyso inay wada fadhiistaan miiska wadaxaajoodka aabaha dhalay Lionel Messi si ay qandaraas cusub ugu saxiixdo garoonka Parc des Princes. Barcelona si dabiici ah mu awoodi doonta inay u soo bandhigto Messi wax ku dhow lacagtii hore oo lagu eedeeyay inuu ka qaadan jiray kooxda Barcelona si loo xalliyo dhibaatada dhaqaale ee kooxda Blaugrana. El Nacional ayaa waxay soo warisay in Lionel Messi la siin doono mushaarka ugu yarkaasi oo gaari doono 200,000 ama 216,800, taasi oo ka dhignaan doonta inuu noqon doono xiddiga ugu hooseeya ee mushaar ahaan ka qaata garoonka Camp Nou ay ka arrimiso kooxda Barcelona. Daawade adim ku muuqata in Lionel Messi dib ugu soo laaban doono kooxda Barcelona.